wixii diinta ka baxsan u dabaaldegi maayo. aniga maalin noo gaar oo la jecel noo gaar ma jirtaa amsanaabay laakiinse jacaylku ma lahan maalin gooni ah oo loo sameeyo maanta waxaan daraseen kala dhaxqaanay dadweynaha ku nabadnada nabadisho anaga wadiinana islaasha ka mas'uulinaan ay ka aanaysan maanta jacayl baadilka mana u dabaaldegi lahaayeen wixii diinta ka baxsan u dabaaldegi maayo. hadday diinta ku salaysan tahay waxa wadaana waa u dabaaldegaya qof muslim oo laa ilaaha illa allah maxamed rasuulullaah laakiin wixii diin ka baxsan uma dabaaldegayo umana barato. aniga maalin noo gaar oo la jecel noo gaar ma jirtaa amsanaabay annaga sameeyay meeri qofka muslim gaar ma doorto waliba inuu allah subhanahu wa ta'ala jecel diin laakiin ya bilaadan jecel gaar oo diin ka taa waa sida hore wuu wariga sana like we jecel noo gaar aya ani ma u dabaaldegi lahayn sababtoo ah maalinta jacaylka dadka yacni waa dhaqan gaalo aniga ma u dabaaldegi lahayn waayo aniga waxaa ka soo horjeedaa inay qalad tahay inta aniga maalinta jacaylkan u dabaaldegi lahaa waxaa iiga qiimo badan oo iiga sharaf badan anoo diinteeda ku faano ama aan u sharafo yacni aan ku faano aan dhaho yacni mar walba aan jeclaysto taasaa iiga qiimo badan intaa maalinta jacaylkan u dabaaldegi lahay fariinteedu waxay ku socotaa dadka dhahaya maalinta jacaylkan u dabaaldegaynaa waxaa idin sheegaa jacayl waxaa naaga baahan xabiibkeena maxamed sala allahu calayhi wasalam aana sharaf iyo qiimo nooga mudan intaasaa idin dhihi lahaanay waana mahadsantiin muslimiin ahaan maalinta jacaylka waxaa ka aaminsanahay inay tahay maalin aanan actually aan sax ahayn oo dhaqan gaaleed inay tahay jacaylkana waa wax jira laakiin maalin in loo dabaaldego oo nalamaa inay wax tahay wax sahlan taas asbeeg waxaan leeyahay ilaahay ka cabsada dad muslimiin aad tihiin dhaqankiina inaad ka tagtaan ma ahan ilaahay ka cabsada maalmaha kale u dabaaldega أو دفعتنا مالين شعلي وإحساسه كرهام أنا محاولة شقيسته وحبرته شعلي أفاريسه وكبحة هذا اللي كرا أكشولي واللي كرا وما وحو دينيا صومالي أعتقد كان هذا صومالي هاي هذا دينتين كفير إننا واحد جيرانان ساس أسلية صومالي يلا إنه حاليا وحبرت شقيسته جعل دبو إذن دقاي وقتلهم maalin jacayl qorta dad baa u dabaaldego aniga ka muslimin ahaan ma ku jirto diinteena waxa la yiraahdo maalin jacayl saan ka aaminsan horta anigana waxaa horta jacayl baa wax jira waa nooga wada ay ku wada nool yihiin ay ku wada xiriiraan laakiinse jacaylku ma lahan maalin gooni ah oo loo sameeyo dadku waa istay waxaa dhihi lahaa aniga fikirkeygu kuma jiro in maalin jacayl maalin gooni ani maalin kasta jacayl yihiin oo dadka jecelahay maalin kasta la kulmaaleen laakiin maalin gooni ah inaa casuumo wallahi taasi dhaqankeena kuma jirto diinteena kuma jirto wallahi maalin dadka horta maalinta ugu dabaaldegaya oo maalinta jacaylka waxaa dhihi lahaa horta maalin gooni ah qofkaan aad jeceshahay waa adiga ahayd wax u adiib maalin kasta wax u adiin kartaa markaas fikirkaas laga yimaado waa diinteena iyo dhaqankeenana aan ku salayno wax walba aan samaynayno waa iswada jecelahay jacaylka hawaara leeyahay horta maalinta jacaylka muslimiin diinteena ma ogolo laakiin maalinta jacaylka waxaa kuseenayna u dabaaldego wanaagtiisa noqonaysa dhankeeda sorry maalinta jacaylka aad u sugaayay oo xamaasada iyo iskay sabrees baa la warmiyay xiriirka way dhamaaday oo raataxma horta niyo jacaylku waa mid oo gooni maalinta oo la qorsheeyay anaga wax loo qorsheeyo ma naqaan laakiin aniga muslimaan ma u dabaaldegaya maalin gaara laakiin waxaan life is life nolosha jacaylku waa nolosha mar walba mar walba wax jiro jooga laakiin wax maalin yimaada maalin baxama